السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرر سومالان iyo umada islaamkayba waa idin salaamay meel kasto aad joogtaanba wareedha waxaan arkay beeshii reer Sheekh Isaxaaq oo baraarugtay oo aragtay maxaan ku dhahay garawsatay kollay in badan oo kamid garawsatay dhibaatada midnimadoodii ku timi iyo maxaan ku dhaahday dhibaatada ay u keentay horta hambaliya ayaan leeyahay meel ay Nairobi ka mid tahay Minnesota ka mid tahay ayaan ka arkaa in ay reer Somaliland shirar waaweyn ku qabsanayaan ama beesha reer Sheekh Isaxaaq reer Somaliland oo dhan ma he beesha reer Sheekh Isaxaaq ay shirar ku qabsanayaan ay kaga tashanayaan midnimadooda marka waxaan leeyahay waa wax aad iyo aad u wanaagsan weeye shaqo fiican weeye waxaan dhageystay doodihii halka laga jeediyay ama qudbadihii halka laga jeediyay oo ah wax maxaan ku dhahay muhiim oo loo baahnaa inay dadku dhaqaalahooda mideeyaan meelo u gaar yeeshaan meelo isugu yimaadaan yeeshaan maxaan ku dhahay bacad mushtarkooda iyo businessyadooda mideystaan meelo waxbarasho oo u gaar yeeshaan inay dad jiro oo ismuujiyo ay noqdaan siyaasadooda mideeyaan oo ay ka tashadaan cidda ay soo saarayaan codkooda iyo dhaqaalahoodaba siinayaan marka waxaan leeyahay hambaliyo wax aad iyo aad loogu farxo weeye taasoo mid sidaas oo kale Nairobi bay ka dhacday waan hambaliyaynayaa wax aad iyo aad loogu farxo waxaana u baahan tahay in halka laga sii wado oo maxaan ku dhahay meelo badan oo kale oo Ingiriiska oo si laxaad la aynu u joogno inkastoo mararka qaar sidhaahdo malaha halka tafaraaruq qareerka halka lagu qaybiyaaba dadka ka soo hadla iyo dadka maxaan ku dhahay tafaraaruq waxay ka sheekeeyaan waa wax umada aad u kala fogeynaya laakiin kulli meel kasto la joogaba dadka inta badan ba wanaagsan marka insha Allah bidmillaah karim waxaan rajaynayaa halkaas Ingiriiskana in laga qabto shirarkaas oo kale Scandinavia inta laga qabto inta shirarkaas oo kale macnaheedu midnimadeenu waxay muhiim u tahay jiritaanka Somaliland bay muhiim u tahay jiritaankeena reernimo ay mid u tahay sida dadka inaga soo horjeedaya cadawga ina laga dagaalamaya bari ilaa galbeed ay u midaysan yihiin waynu aragnaa taana waxaynu kaga bixi karnaa oo aynu kula dadka iskaga celin karnaa waa midnimadeena weeye iyadoo macnaheedu duulimaad aynaan ahayn laakiin inaynu danaheena ka tashano oo aynu midowno oo aynu garwaaqsano inaan reerka kale ka maarmin inaanay jirin reer laga maarmi kara iyo reer la yaraysan karo iyo reer la dhaliilsan kara midna inaanu jirin ee beeshani ay siman tahay isuna baahan tahay dadkeeda la mideeyo dhalinyaradeeda la mideeyo dhalinyarada qurbaha joogta la mideeyo dalkoodiina lagu xidho ayagana la isku xidho waxay muhiim u tahay jiritaanka Somaliland iyo horumarka iyo sii socodka Somaliland marka anigu waxaan maanta u soo qabsado kaliya inaan shirarka maxaan ku raadey lagu qabsanayo meelaha kala duwan lagu qabtay in la joogteeyo lana gaarsiiyo meel kastaba wadan kastaba la gaarsiiyo umada joogta in kasto yihiinba ay isu yimaadaan wadana tashadaan marka waxaan leeyahay beesha hambaliyo duriyada reer Sheekh Isaxaaq meel kasto ay joogtaan tolkay waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh